system iyo nolol baa waxaa la samaynayaa oo wax lagu gaaro lacag laga dooni mayo cidii maanta muxuu ahaa xoolo ka doontay ama ku turunturootay way khaldantay haddii ilaahidankeeda leeyahay nolosheenaan bays u dhigaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin taasaa inoo ah muxuu ahaa inaynu muxuu ahaa xoojinno bunuugtii way noo soo noqotay anigu hadda kaarar baan watayo dhulkaan ku mareeyado 3-4 kala duwan bay ahaayeen mid walba muxuu ahaa meel baan u isticmaalayay simple adduunkaynu la mid ah waxaasoo dhan bay kabaysaa wixii foojariga ahay beenta sheeganayo hadda la yidhi magacyo beena buu wax ku soo qortay dalkeenna bilowgiisa iyo noloshiisa iyo inuu muxuu ahaa soo kabsado iyo in qofka la yaqaano iyo inaan qofna tuhuma gelin baa loo baahan yahay wixiisa isagoo wata aan qoys iyo reer iyo oday iyo nabadoon midna la isweydiinayn inuu wixiisa la tago hay'adaha uu dukumentigiisa jaba ku wato hadduu ka lumana sida safiirku sheegay ama wasiirku sheegay oo muxuu ahaa lambarka sheeganaya kala soo baxayo dhalashadiisa muxuu ahaa meesha la rabo laga siinayo waa run professor Hussein marka hadda adeegyadu israacaan oo wuxuu la helo qofku si sahlan weyn u heli karaa oo ma garanaysaa tartiibaada oo waysan dibindaabiyo iyo haddii ilaahay dankeeda leeyahay curfi iyo xoolo laga dureeminahay marka warkaan wanaagiisa iyo tubtiisa iyo waxa inuu ku fadhiyo waa la yiri raggii wada hadlay oo dhan baa yiri hadda oo la joogo oo uusan bilaaban 150 oo tablet oo la geynayo oo yada wax dhalisa oo mulisadu ay degmooyinka loo qaybin doono oo waa hore khayraad oo soo galay baa jira oo systemkan caawinaya marka waa system soo kabasha dawladnimadeena bilowgiisa iyo haddii ilaa heerka aan joogno kor u soo qaadaya aqoonsigeena iyo waxa aan nahay cadaynaya dalka maanta marka la tira koobo statistics waxa weeye dhalashada iyo dhimashada iyo guurka iyo furiinka weeye statistics mar haddii la istiriyo dalka meesha xogtiisa lagula soconayo sida wasiirku sheegayay waa halkaa weeye marka xogtaan xogaan u baahannahay weeye hadda maanta degmooyinkii iyo dalkii waa laga howlgalay dowlad goboleedyadii dhammaan munaasabadihii baa la samaynayaa haddii ilaahay dankeeda leeyahay iyadoo qofna aysan dhibsanayn qof walbana aqoonsi helayo baa barnaamijkii dadligiddu ka bilaabmaya qalabyadaasna waa geynaynaa shuruucdiina waa marinaynaa barnaamijkuna waa inoo hilgelayaa waa waxyaabaha maanta muxuu ahaa inoo ah dowladnimadeennan inta hadda aynu ku soo kabannay oo wanaagga oo muxuu ahaa waayahan baa inoo hirgelayay oo ama dayn layna ka cafiyo ama haddii ilaahidankeeda leeyahay cunaqabatayntii oo layna ka qaado ama jamcadii quruumaha ka dhexayso aan mid ka noqonno ama East Africa aan mid ka noqonno soo kabashadeena ama aan isku xoreynayno shabaabiyadii iyo cadowgii degmooyin badan oo maanta 120 degmo ka badan laga xoreeyay oo loo sameeyay barnaamijka xasilinta oo muxuu ahaa maanta layr iyo biyo iyo isbitaal iyo caafimaad iyo amni iyo maamul ay ismaamulaan iyo cadaalad ay haystaan waxaasoo dhan waa waxyaabaha muxuu ahaa ina kaabaya oo yadiilada leh waxaasoo dhan dad diidan oo waxay doonayaan aan la garanayn mid kursi u xanaaqsan oo hunguri xun oo si ku helaya aan la aqoon wadada uu ku helaya aan marayn mid kale oo irsiq ka doonaya oo muxuu ahaa ka doonaya warqad xun ah oo si foojari oo ku saxiixi jiray waligiis inay ugu noolaato waxaasoo dhan baa cadow ku ah laakiin ma shaqaynayso ummaddu danteeda iyadaa garanaysa idinkaana la rabaa dantiina inaa garataa cid wax gooniya kaga danaynaysa ma leh system iyo nolol baa waxaa la samaynayaa oo wax lagu gaaro lacag laga dooni mayo cidii maanta muxuu ahaa xoolo ka doontay ama ku turunturootay way khaldantay haddii ilaahidankeeda leeyahay nolosheenaan bays u dhigaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin taasaa inoo ah muxuu ahaa inaynu muxuu ahaa xoojinno bunuugtii way noo soo noqotay anigu hadda kaarar baan watayo dhulkaan ku mareeyado 3-4 kala duwan bay ahaayeen mid walba muxuu ahaa
meel baanu isticmaalayay simple adduunkaynu la midna waxaasoo dhan bay kabaysaa wixii foojariga ah ee beenta sheeganaya hadda la yidhi magacyo beena buu wax ku soo qortay kaas waa la dhimanaya hadduu rabo magacyadiisa ama waa la qabanaya laakiin waxa dhammaan been iyo ku shaqayn doonina runta ku shaqaynaya aad iyo aad baa mahadsantiin mar labaad wadi salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah